السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مر لبعض كسر دوّا برنامج كيجي هالحجالها يا هورارها. سيدي بلان تايد وحنا كنا كحسيتنا أخيارتي يا أصحابتي كسر جوابتي سؤالي هوري قار بدن أو حساب بدن واني سودا إن شاء الله تعالى سمر كيجي تدال إذا كنا إن شاء الله تعالى أصحابت السؤال سوقرتي وحكم ده سؤال شكوات أبتدون وحصوقرتي سؤال شكوات أورانا يسا saddex geela ma garanaysaa u quruxa ragana aad u foolxumaa su-aasha uu ka jawaabay oo waxa weeyaan faruurta habeeda iyo tuurta ama kuruska su-aasha saddexaadna uu gartay oo iyadana waxa weeyaan su-aasha saddexaad waa dhogorta laakiin isagu su-aasha labaad kusoo qoray su-aasha saddexaad weeyaan oo nirigta xagga hooyadeed uga weyntay waa dhogorta taana wuu saxay waa ku mahadsanay geesigaasi inta samsam askar leedana insha Allah taala su'aasha koowaad way isku dayday labana way saxday midna way garan weyday aad iyo aad bay u dadaashay asxaab fara badan oo isku dayay baa jira su-aasha saddexaad muhiim saalax intaasina way garatay su-aasha saddexaad hamsig hargeysaawi geesigaasina uu gartay su-aasha koowaad yaa kale waahib nimcaan su-aasha afraad oo koodhanaysa hurdada su-aasha asxaab badan baa ku dabaqday oo su-aashaas yani waxay odhanaysaa yani wax markuu ku dhaafo ma garanaysaa aad tabtoon waa waxaad sugto oo markuu ku dhaafo aad tabto yani ma garanaysaa eekeeyahan adeegsaday ayaa wuxuu yahay mid ma garanaysaa nina marka dhammaan asxaab badan ba waxay soo qoreen waqtiga asxaabta aad iyo aad bay umahadsan yahay asxaab soo qortay waqtiga way ku dhaweyn laakiin waa markay kaa tagto marka yani eekeeyaha waa la yaro bedelay maarata xidhaalaha iska saasa marka waxa weeyaan hurdada waa la sugaa kabacdina marka soo toosto baad aragtaa hadana yani garanaysaa wax la tabo maaha saamiye maxamed su-aashiina koowaad way garatay su-aasha labaad ma garatay su-aasha saddexaadna way garatay ta afraadna waa waqtiga bay tiri way ku dhaweysay aad iyo aad bay umahadsan tahay asxaabta afar su-aalood aan iga wada jawaabo su-aasha koowaad waxa weeyaan taa badankiina waa wada garateen ma garanaysaa waa geela saddex u quraxaad ma garanaysaa raggan u foolxumaa waxa weeyaan waa habeeda ma garanaysaa habeed waxa weeyaan geela ma garanaysaa uu isku kaakaashaa ma garanaysaa laakiin qof weyn isku kaashaa ma garanaysaa waa waalisa ma ta kalena waxa weeyaan yani geela kuruskiisa ama tuurta ma garanaysaa yani waa tuur ma garanaysaa nin tuur leh waa dhibaata ma garanaysaa iyadu marka geela laakiin waa u qurux ma garanaysaa ta saddexaadna waxa weeyaan yani waa faruurta geela halka uu faruuran iyagoo geela waa qurux laakiin dee bini aadanka maartay ragga waa u foolxuma soo maha bini aadanka o dhan su-aasha labaadna waxa ka odhanaysaa laf yani geela kamida oon dux iyo swag midna yeelan marka yani halxidhaalaha iska saaso qof walba meel fog buu ka fikiraya laakiin waxa weeyaan ilkaha ma garanaysaa ilkaha haddaad karisa iyo haddaanad karin iyo haddaad dayso midna ma garanaysaa ma yeeshaan marka ilkaha geela ma yeeshaan dux iyo swag midna male su-aasha saddexaadna waxa weyan geela halkay yani nirigta xagga hooyadeed uga weyn tahay yani waa dhogorta su-aasha afraadna waxa weeyaan jawaabteedu waa hurdada insha Allah tacaala barnaamijkeenii kale oo yani halxidhaalaha aan ku xigsiino marka waxaan weydiin doonaa maanta su-aalo yaro malaha xagga xisaabta oo badan inta xagga xisaabta ku fiican baa kasoo jawaabi doontaa yani waxay ka odhanaysaa su-aasha koowaad oday baa wuxuu dhalay saddex wiil kabacdina odaygu wuxuu lahaa wax xoolaa wuxuu lahaa 17 neef oo geela oo nool ayuu lahaa odaygu dabeetana odaygiibaa maalintii dambe sakaraatulmoodkiibaa qabtay dabeetana odaygii intaanu dhiman buu dardaarmay dabeetana odaygu wuxuu yihi yani xoolaha marka laba loo qaybiyo inanka weyn siiya buu yihi marka saddex loo qaybiyana inanka ku-xiga ee dhexe siiya marka 9 loo qaybiyana inanka uga yar siiya waxa meesha lagu qaybsanayaana waa 17 geela haddaad adiga tahay sidaad ugu qaybin lahayd insha Allah tacaala su-aasha labaadna waxay ka odhanaysaa laba islaamood baa waxa lasoo wada siiyey 8 litir oo suwaga dabeetana labadii islaamood hal joog bay ku sitaan oo 8 litir qaada labadii islaamood baa halkaa joog bay ku haystaan markay dhexda marayaan bay dhaween kala leexana aynu kala qaybsano reer bay ku leexdeen reerkii waxaa looga helay joog qaada 5 litir iyo joog qaada 3 litir magaranaysaa waxay sitaana waa 8 litir joogi sitaana marka adigu seebaad ugu qaybin lahayd islaamahaas ood midkiiba u siin lahayd 4 taana isku soo daya insha Allah tacaala
intaasaynu maanta ku joojin doonaa insha allahu tacaala. wixii ka dambeynaa insha allahu sheekooyin xiise leh iyo xidhaalooyin aad iyo aad u qaaliya. commentiyo, like-tiyo, subscribe-tiyo, share-tuna waa xaggiina. aad iyo aad baad mahadsantihiin asxaabteyda qaaliga. wixii aad rabtaana commentiga insha allah noogu soo gudbiya. waan salaamaya. allah macaakum.